Muqdisho waa magaalo horumartay isla markaana kobac badan sameynaysa muddooyinkii la soo dhaafay. Sanadba sanadka ka dambeeya, muuqaal ayaa ku sii siyaadaya magaalada. Markaan kama hadlayno Muqdishada taqaan iyo sidoo kale degmooyinkii qadiimiga ah oo qaarkood daaro cusub laga dhisayo, balse waxaan u jihaysanaynaa isla markaana warbixinteena la xiriirta deegaanka Daarusalaam. Dhismayaal qurux badan isla markaana waa kuwa wadamada horumare ee yagleelaan ayaa ka dhisan deegaankan. Maalinba maalinta ka dambeysa waa deegaan sii ballaaranaya. Dhul aad ku ogeed shalay in dhismo uusan ku oolin ayaa markaan la dhisayaa. Dhismayaal qurux badan, daarays haysta, wadooyin qurux badan, guryo laga fikiray dhismahooda iyo sidoo kale dabaqyo hanaan wanaagsan loo dhisay ayaa halkan laga hirgeliyay. Waa deegaan dhismaya isla markaana dhowaan isku diyaarinaysa in degmo ay noqoto. Quruxda guryaha halkan laga dhisay qaarkood musalsalada ama muuqaalada filmaanta ee Soomaalidu ay sameeyaan waa meelaha ugu badan ee halkan lagu soo jiro. Markaad halkan dhex joogto, waxaa laga yaabaa inaad aaminto waxaad joogtaa meel kale oo ka baxsan magaalada Muqdisho, balse waa isla Muqdisho oo ballaaratay isla markaana yeelatay dhismayaal qurux badan. Maalmaha bada dalxiisku dadku waxay tagaan deegaanka Daarusalaam. Taas waxay ku tusinaysaa inay tahay meel hadda ka duwan marka si loo fiiriyo magaalada Muqdisho oo bilic ahaan dadka soo jiidatay. Maalmaha ciida ayaa ka mid ah maalmaha ugu badan ee dadku dalxiiska u tagaan deegaanka Daarusalaam. Laakiinse dhismayaasha laga hirgeliyay hadda soconaya qaarkoodna waxay bileen deegaanka. Muuqaal qurux badan ayuu deegaanku yeeshay. Dhismayaashan gaagaaban, qaarkoodna sare aan loo qaadin, isla markaana isla wada siman, waxay noqdeen kuwo door weyn ka qaatay bilicda deegaanka Daarusalaam. Dad badan oo qurbaha ka soo guuray ayaa deegaankan degaya, maadaama guryaha ku yaala iyo halkay ka soo guureen qaab ahaan ay aad isugu dhow yihiin. Dadka qaarna deegaankan u guuraya ama degaya waxay ka guuraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyagoo maciinbidaya deegaan deganaan leh, ammaankiisa uu sugan yahay, waxbarasho leh, caafimaad leh, isla markaana leh hanaan ammaan oo lagu sugo deegaankan. Dadka badi waxay tilmaamayaan in qaab ahaan guryaha laga dhisay deegaanka Daarusalaam ay si weyn u bileen bilicda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xitaa guryaha qaar ee ka dhisan deegaankan, hanaanka leerarka loogu xiray waa kuwo cajiiba marka gudaha aad u gasho. Ujeedka warbixinteena ayaa ku qotoma in quruxda iyo bilicda ka muuqanaysa deegaanka Daarusalaam inaanu dadku u soo bandhigno. Waxaa laga yaabaa wax badan inaad maqashay, meel hebel qarax ayaa ka dhacay, meel hebel burbur ayaa soo gaaray. Waxaa laga yaabaa in dulka maqalkaagu ay ku daaleen wararkaasi la xiriira in dhagahaaga aysan u rooneen, balse indhahaagu waa laga yaabaa inay jeclaanayaan magaalo bilic yeelanaysa, qurux badnaanaysa, dhismayaasheedana ay kordhayaan. Kaliya deegaanka Daarusalaam maahan meelaha bilicda iyo quruxda yeelanaya, balse deegaano badan oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa sanadihii lasoo dhaafay sameynaya kobac badan oo la xiriira xagga dhismayaasha. Daaraha la dhisayo, dabaqyada la taagayo, guryaha sida cajiibka loo dhisayo, intaba waa wax ku soo badanaya magaalada. Muqdishona waxay u muuqanaysaa magaalo aan daalaynin si kastoo loo dhibaateeyo. Magaalo dulqaadkeedu uu badan yahay, dadkeeduna ay sabar badan yihiin. Taasna waxay ka dhigtay in magaaladu ay noqoto mid qurux badan. Dadka badi qurbaha ka imaanaya waxay doonayaan inay arkaan waxa iska bedelay sanadihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho. Sanado badan dad aan tegin magaalada ayaa cagta saaraya Muqdisho si ay u soo arkaan magaaladan farxadda ay ka muuqato oo aan ka daalin qaraxyada iyo sidoo kale dhibaatooyinka loo geysto. Si kastoo qoys iyo dhibaato loogu raadiyo, maahan magaalo dib u laabanaysa oo waa magaalo sii dhaqaaqaysa marba marka ka dambeysa. Alloo barakay Muqdisho iyo dadkeeda. Ku xirnow mar waliba Sharmarka Media.